صلوات الله عليك يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم daawadayaasha kanaalka ma ogtahay kusoo dhawaada gacmo furan. haddaad tahay daawada cusub ku taabo subscribe shaqaysiina gambaleelka hana iloobin like inaad saarto. mahadsanidin. waxaan haynaa 5 ficil oo burinaya shaqaynta kelyaha. waa inaad iska ilaalisaan maxaa yeelay kelyaha waxay ka mid tahay xubno jirka bini'aadanka ku jira, muhiimna u ah caafimaadka. maxaa yeelay waxay qabataa safeynta dhiigga, sameynta hormoonaadka, iyo shafidda birta, sidoo kale sameynta kaadida iyo burinta sumooyinka. sidaas darteed waxay ka mid tahay qalabka ama xubnayaasha ugu muhiimsan jirka bini'aadanka. sidaas darteed waa inaad iska ilaalisaa caadooyinkani 5 soo socda. Top 1. biyo kugu filan inaadan cabin. ugu yaraantii maalintii waa inaad cabtaa biyo badan sida uga hortagto dhibka. Top 2. cunaha cusbada ku badan. waa inaad iska ilaalisaa cuntooyinka cusbada ku badan, maxaa yeelay dhibaatooyin ayaad ka helaysaa. Top 3. cabidda ama cunidda cunaha sokorta badan. baraha cilmiga jirka waxay dhahaan dadka caba cabitaanada ee sokorta ku badan waa dadka ka sheegto dhibaatooyinka kelida badna. Top 4. xaajada musqusha inaadan gudanin. haddaadan galaynin musqusha waqtiyada aad u baahan tahay, dhibaatooyin badan ayaa ku imaan doona kelidaada. Top 5. xanuun baabi'iyaha. badna kaniiniga xanuun baabi'iyaha waxaa loo raadiyaa jug soo gaartay jirka ama xanuun jirka gudihiisa ka hayo, laakiin ma fiicno kaniinigaasi in liska badiyo maxaa yeelay dhibaatooyin badan ayuu gaarsiinayaa kelyaha.